no anagu ba ka soo jeedno gobolka Togdheer wuxuu noo cugtay aniga Xaliimo waxaanu ahayn musharaxiintii golaha wakiilada ee gobolka Saaxil ka sharaxnaa aniga xogayaha arrimaha bulshada Xaliimo Yuusuf Xuseen wuxuu noo cugtay anagoo reer Burcana ahayn oo deegaanka ka soo jeedneen inuu hogaamino noqono heer qaran iyo fulinta xusbigaba injineer Faysal Ali Xuseen anaga sharafay noo tahay inaanu gobolkaygii nimaadno Togdheer oo runtii aanu ku faano oo gobolkii ahaan jiray dhaqaalaha Soomaaliland xoolaha ee laga aasaasay ama dhidibada Soomaaliland loogu taagay uu yahay gobolkan Togdheer inuu yahay gobolkii Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo reer Burca ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali oo reer Burca ahaa iyo Ilaahay ha barakeeye Axmed Maxamuud Siilaanyo madaxweynihii isna Muuse bedelay oo isna reer Burca ahaa aabihii waxbarashada oo isna gobolka Togdheer ahaa abwaankeena weyn ee fanka Soomaaliyeed meel walba laga yaqaano abwaan hadraawi oo isna reer Burca ahaa Burco waa gobolka aan lagu dhaadan karo ee maanta Somaliland la dayacay weeye Togdheer waxaanu rajaynaynaa xusbi ahaan waxaanu u nimi anagu ololo uma socono umaanu iman waxaanu u nimi xog waraysi iyo dadkiinii dhalinyaradiinii haweenkiinii iyo aqoon-yahankiiniba soo arka gobolkii Togdheer taga saasaanu u nimi wafdi hogaaminayay injineer Faysal Ali Xuseen iyo inaanu iyadana ka soo qayb galno jaamacadda Alfa ay maanta da'yarteena 350 qof ka qalin jabiyeen ay honor u ahayd Muniiri oo fadhida halkaas ayaan u nimi gobolka Togdheer aanu kala qayb galno farxadda iyadana waanu kala qayb galnay waxaanu doonaynaa insha Allah bismillaahi kariim xusbiyo badan waynu tijaabinay maanta waxaanu doonaynaa hadii Ilaahay inala qabto inaanu Faysal Ali Xuseen oo runtii ah ninka kaliya ee maanta dalkeena badbaadiyo waa Faysal Ali Xuseen hadaanu Faysal badbaadin dalka waa aragtaan labada musharaxiin kale inta badan uma hadlaan Somaliland waxba kama yiraahdaan laakiin xamar iyo meel walba Faysal wuu jawaaba dalkana wuu badbaadiyaa waxaanu doonaynaa insha Allah hadii Ilaahay nala qabto inaanu insha Allah dhalinyarada aynu wax badan la qabto oo sportska la qabto oo dhalinyaradu noqoto gobolka Togdheer waa gobolkii kaliya goboladii hore waqooyi la oran jiray ugu horeyn jiray intaasoo inana garanaysaan ahaa inimadii kubadda ciyaari jiray maanta waxaanu doonaynaa insha Allah tacaala inaanu soo noolayno oo nidla shaqeyno xusbi ahaan Faysal Ali Xuseen waa xusbiga kaliya ku suntan inuu ardayda Somaliland ee jaamac iskuulada ka baxa secondaryada inuu siiyo scholarship diyaar baan u yahay wixii Burco iyo gobolka Togdheer insha Allah loogu talagalay hadii Ilaahay na gaarsiiyo waxaanu idinku hadalka badan maayo inaanu ka heer qaran ahaan inaanu isxog iswareysano oo baahiyaha asaasiga ee xusbiga wixii wax ka qaban karo isla eegno hadii Ilaahay yiraaho xusbiga kaliya in qabiil loo eegin weeye xusbiga wixii ay u badan yihiin dhalinyaro ay meel walba joogan oo ay ka shaqeeyaan oo loo eegin qabiil inteeda maanta wada socota qof kastaba qabiil buu ka soo jeedaa waxa halka fadhiyay isagana afayeenkii xusbiga Bilaal oo afwan ilaawi faaraxsan uu nala socda dhalinyarada arrimaha dibadda xiriirka dibadda oo Mustafa ah xogayiye dhalinyarada gudoomiye gobolka Togdheer oo hodana Xaliimo iyaduna ah xogayiye arrimaha bulshada ayaa iyaduna joogta waxaan doonaynaa insha Allah inaan wax badan islaafsano oo in wax badan isweydiino si aan anaguna gudoomiyaha iyagii runtii oo wakiil ka nahay oo noo soo kaxeeyeen in gobolkii la eegno aan dib ugu celino oo runtii isaguna ah qofna aaminsan inaan waxaan la qabanayno oo doonaya maanta in wadankanu isbedel sameeyo sida uu sheegay inaan ka dhalinyarada ee da'da yar 10,200 saacadood ba haray soo maaha inta hadhay إن شاء الله وحبنا وأتكون هاتسنتي وأنا شرفت نجمع سيدا ونكسنة هالكلمات هذا وهذا الشيء أنه مرور بقول نسود وين هو يمكن ما نعنقه وحن ربنا إن شاء الله إن وحبنا نلقبنا وباهدين دني رهان قبل كان إن شاء الله نوسو بسالة نقول سان قدومي وقدونه وأنا هاتسنتي